Assalaamu calaykum. Maanta waxaynu ka hadlaynaa cuntooyinka ugu wanaagsan qof kastoo qaba xanuunka kolestaroolka. Cuntooyinkani way la dagaalamaan isla markaana hoos ayay u dhigaan xanuunka kolestaroolka. Sidaa daraaddeed dadka iyaguna danaynaya inay ka hortagaan xanuunka kolestaroolka waa inay mowduucan bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa daawadaan. Intaa kadib, intaynaan ka hadal cuntooyinka la dagaalama ee hoos u dhiga xanuunka kolestaroolka isla markaana u wanaagsan dadka qaba kolestaroolka, waa inaynu marka hore ka hadalnaa islana fahanaa waxa uu yahay kolestaroolku. Kolestarool waa shay dufan ah oo jidhku u baahan yahay inuu ku shaqeeyo, waxaana lagu sameeyaa beerka, waxaana laga helaa cuntada ka timaada xoolaha sida hilibka, ukunta ama beedka iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo iyo subagga. Kolestaroolka fara badan oo jidhka ku jiraana waxa uu noqon karaa mid waxyeelo u leh jidhka, wuxuuna kordhin karaa halista aad ugu jirto cudurrada wadnaha. Haddaba halis ayaad ugu jirtaa dhiig kolestaroolkiisu sareeya haddii jidhkaagu uu sameeyo kolestarool fara badan, ama aad cunno uu dufan qaydhin iyo kolestaroolku ay ku sareeyaan, ama aad qabto cudurka sankarowga, heerka qanjirka dheecaan burburintaaduna uu hooseeyo, kaasoo loo yaqaano hypothyroidism ama cudurka kelida. Haddaynu ka hadalno calaamadaha lagu garan karo cudurkan kolestaroolka, cudurkan waxaa loo yaqaanaa dilaaga aamusan, sababtana waxay tahay calaamado lagu garan kara inta badan ma laha, waxaana dhici karta calaamadaha ugu horeysa inay noqoto wadna xanuun, wadna qabad ama faalig, ama xanuun murqaha iyo lugta marka aad soconaysid. Cilada kolestaroolka kacsanna waxa uu noqon karaa dhaxal, carruurta ama dhallinyaradana waa uu ku dhacaa noocan. intaa kadib daawadayaal ku soo dhawaada cuntooyinka la dagaalama isla markaana hoos u dhiga kana hortaga xanuunka kolestaroolka, kuwaasoo u fiican dadka kolestaroolka qaba. Ugu horeyn, basbaaska ayaa ka mid ah cunnooyinka la dagaalama isla markaana hoos u dhiga una wanaagsan dadka qaba xanuunka kolestaroolka, waayo basbaaska waxaa ku jirta maado loo yaqaano kaayaan. Maadadaasi waxay hoos u dhigtaa kolestaroolka, waxay kaloo ka hortagtaa xinjiroobista dhiigga, waxay kaloo mishaa guntimaha dhiigga, waxayna hoos u dhigtaa cudurka wadnaqabadka, faaliga iyo xinjiroobista xididada sanbabada. Dhinaca kalena, sisinta cabitaankeeda iyo midhaheeda ayaa u wanaagsan dadka qaba kolestaroolka, waayo sisinta waxa ay ka mid tahay dalagyada dalkeena ka baxa, waxayna aad ugu muhiim tahay caafimaadka, waxaana laga helaa nafaqooyin kala duwan. Sidaa daraaddeed, saliidda macsarada oo loo yaqaano boqoradda saliidaha ayaa laga shiidaa sisinta. Cunno ahaan ayaa loo cuni karaa sisinta, cabitaan ahaanna waa loo qasan karaa. Sidaa daraaddeed, caafimaad ahaan waxaa la ogaaday in sisintu ay u roon tahay caafimaadka wadnaha, iyadoo hoos u dhigaysa dufanka kolestaroolka oo halis ku ah sidaynu soo sheegnay xididada wadnaha. Waxay kaloo hoos u dhigtaa cadaadiska dhiigga ee sareeya. sidoo kale, cuntooyinka hoos u dhiga ee la dagaalama isla markaana u wanaagsan dadka kolestaroolka qaba waxaa ka mid ah midhahan loo yaqaano afka carabiga farowla, luuqadda ingiriisidana loo yaqaano strawberry. waa midho faa'iidooyin iyo mid nafaqo iyo mid caafimaadba laga helo, inkastoo dhulkeena aan laga beeran, laakiin carrada iyo cimilada uu u baahan yahay beerista midhahani waynu haysanaa. Haddaba midhahan waxaa loo isticmaalaa ka hortagga xanuunka kolestaroolka oo sida aynu sheegnay ka dhasha dufanka fadhiista xididada wadnaha. Geedka qorfaha ayaa isaguna ka mid ah cuntooyinka lagu daaweeyey isla markaana la dagaalama xanuunka kolestaroolka, wuxuuna u wanaagsan yahay dadka xanuunka kolestaroolka ka cabanaya. Haddaba qorfuhu waa geed aad looga isticmaalo dhulka Soomaalida, wuxuuna ka baxaa wadamada Hindiya, Sri Lanka, Indonesia, Brazil, Vietnam, Masar, Shiinaha iyo Madagascar. Qorfaha waxaa lagu darsan karaa cuntada iyo cabitaanka. Sidaa daraaddeed, geedkan qorfaha waxaa kaloo la isticmaali karaa qoloftiisa iyo saliidiisa. Sidaa daraaddeedna dadka joogteeya isticmaalka qorfaha waxaa la arkay inuu kolestaroolkooda inuusan kicin, waayo warbixin lagu soo daabacay bogga loo yaqaano Mayo Clinic waxay sheegtay in qorfaha uu kala furfuro dufanka xididada fadhiista. Cuntooyinka kale hoos u dhiga isla markaana ka hortaga una wanaagsan dadka qaba kolestaroolka waxaa ka mid ah cambaha. Cambaha waxaa la og yahay in cambuhu yahay boqorka khudaarta, cid kastaana ay ka hesho oo dadka intooda badan ay aad u jecel yihiin.
sidoo kalena cambuhu waa midho aad u macaan oo cunto ahaan iyo cabitaan ahaan loo isticmaali karo wuxuuna aad uga baxaa dhulka Soomaaliyeed iyo meelo badan oo dunida ka mid ah sidaa daraaddeed cambaha waxa uu ku jira midhaha ugu caafimaadka badan ee la cuno sidaa daraaddeedna cambaha waxa uu wanaagsan yahay dadka qaba kolestaroolka waayo cambaha waxa uu yareeyaa dhaawacyada kolestaroolka uu gaarsiiyo xididada jidhka cuntooyinka kale la dagaalama isla markaana hoos u dhiga kana hortaga kolestaroolka ama u wanaagsan dadka kolestaroolka qaba waxa kamid ah midhaha loo yaqaan qajaar qaraadhka midhahan afka Ingiriisida waxa lagu yiraahdaa bitter melon oo macnaheedu noqonaya qaraqaraad afka Carabigana waxa loogu yeeraa bocor qaraadh laakiin midhahan waxa uu ka tirsan yahay qoys dhireedka loo yaqaano Cucurbitaceae family sidaa daraaddeed magaca ugu dhow ee Soomaali waxa uu noqonayaa qajaar qaraadh ama khayaar qaraadh haddaba midhahani dhulkeena kama baxo balse wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa dalalka qaaradda Aasiya gaar ahaan dhulka Hindiya waxa kaloo laga helaa Afrika iyo wadamada Latin America laakiin wadamada aynu dariska nahay ee dhinacyada inaga xiga sida Kenya, Ethiopia iyo Uganda waa lagu beeraa waxaanad ka helaysaa suuqyada qudaartooda khayaar qaraadhka ama qajaar qaraadhku waa midho faa'iidooyin badan u leh jidhka bini'aadamka sidaa daraaddeed qajaar qaraadhku waxa uu yareeyaa dufanka kolestaroolka kaasoo faa'iido dheeraad ah u leh bukaanada macaanka qaba sababtoo ah kolestaroolku waxa uu keeni karaa wadnaqabadka iyo faaliga dhinaca kalena midhaha babayga ayaa ka mid ah cunooyinka hoos u dhiga isla markaa la dagaalama weliba u wanaagsan dadka qaba kolestaroolka sidaa daraaddeed babayga waxaa laga helaa waxyaabo ka ilaalin kara xididada jidhka gaar ahaan kuwa wadnaha inay fadhiistaan dufanka loo yaqaan kolestarool xididadaas oo xidhmaana waxay sabab u noqon karaan wadnaqabadka sidoo kale geedka huruudda ayaa ka mid ah cunooyinka dufanka dhiigga ama kolestaroolka hoos u dhiga haddaba ilaahay ayaa mahad oo dhani u sugnaatay oo dunida ku beeray geeda daawo xambaarsan sidaa daraaddeed huruudda waa dhir qiimo badan ku fadhida laakiin nasiib xumo dadkeena aysan aqoon badan u lahayn iyagoo beeran karana haddana aysan beeran geedka huruudda waxaa lagu tiriyaa geedaha ugu caansan dhinaca daaweynta iyo ka hortagga cudurro badan oo dhibaato maanta ku haya dunida waana geed aad loo daraaseeyey ilaa haddana la qiyaasayo in laga diyaariyey 6,000 oo cilmi baadhis oo qiimo leh sidaa daraaddeed cilmi baadhisyada qaarkood waxay sheegeen in geedkani geli karo beddelka 10 daawo oo maanta dunida si aada looga isticmaalo sidaas ay tahayna huruudda waxay hoos u dhigtaa dufanka dhiigga ama kolestaroolka waayo daawooyinka maanta dunida laga isticmaalo waxa ay leeyihiin waxyeelo dhinaca beerka iyo keliyaha ah laakiin huruudda waxay hoos u dhigtaa kolestaroolka waxyeelana ma keento caleenta koostada ayaa iyaduna ka mid ah cunooyinka hoos u dhiga dufanka loo yaqaan kolestaroolka sidoo kale way la dagaalantaa waxay kaloo u wanaagsan tahay dadka qaba xanuunka kolestaroolka haddaba caleenta koostada waa cagaar la karsado oo cunto ahaan loo cuno mararka qaarna waxaaba laga dhigtaa cabitaan waxaana afka Ingiriisida lagu yiraahdaa spinach waxaana la rumaysan yahay in asalkeedu uu ka soo jeedo dalka Iiraan laakiin meelo badan ayay dunida gaadhay oo hadda laga isticmaalaa waxaana ka mid ah geeyiga Soomaaliyeed sidaa daraaddeed koostada waxay ka kooban tahay nafaqooyin badan waxaana aad uga buuxa koostada maadooyinka niacin, zinki, borotiin, vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, thiamine, vitamin B6, calcium, birta, magnesium, potassium iyo copper waxaase aad ugu yar dufanka iyo kolestaroolka malmalka ayaa isaguna ka mid ah waxyaabaha la dagaalama kolestaroolka isla markaana hoos u dhiga una wanaagsan dadka qaba kolestaroolka sidaa daraaddeed malmalka waa nooc ka mid ah xabagta waxaana laga gurtaa geedo gaar ah waxaana afka qalaad lagu yidhaa mayra ereygan asal ahaantiisuna waxaa laga keenay kelmadda Carabiga ee mur oo macnaheedu yahay qadhaadh malmalka waxaa loo kala qaybiyaa 3 nooc oo kala ah malmalka Afrikaanka malmalka Soomaalida iyo malmalka Carabta haddaba dufanka dhiigga iyo kolestaroolka malmalku wax weyn buu ka taraa waayo daraasad la sameeyay sanadku markuu ahaa 2009 waxaa lagu arkay inuu malmalku leeyahay awood uu hoos ugu dhimo dufanka dhiigga ama kolestaroolka dhinaca kale dabacasaha ama kaarootada dadka qaarna u yaqaanaan kaarowga ayaa isaguna ka mid ah cunooyinka la dagaalama isla markaana lagu daaweyn karo xanuunka kolestaroolka
waayo daraasad lagu sameeyey dadka qaba cudurka kolestaroolka oo ku nool dalka Ingiriiska waxaa ka soo baxday in heerka kolestaroolkoodu uu hoos u dhacay boqolkiiba 11 markii ay qaateen in ka yar rubuc karoota maalin kasta muddo 3 isbuuc oo kaliya sida awgeed haddii xanuunka lagugu sheegay ama aad halis ugu jirto ku dadaal cunista karootada si aad uga maarantid daawo. midhaha loo yaqaano tiinka ayaa isaguna ka mid ah cunooyinka ugu wanaagsan dadka la daala dhacaya xanuunka kolestaroolka isla markaana tiinku waa uu la dagaalama isla markaana waa uu ka hortagaa xanuunka kolestaroolka sida daraadeed inkastoo midhahan uusan ka bixin ama uusan ku badnayn dalkeena laakiin dadka qaar waxay ku qaldi karaan midhaha geedka tiinka qodaxaha leh laakiin kani wuu ka duwan yahay waxayna culimada islaamku isku raaceen inuu yahay midhaha uu alle ku dhaartay ee uu ka xusay quraanka wuxuuna leeyahay faa'iidooyin kala duwan sida daraadeed tiinka waxa uu yareeyaa maadada kolestaroolka maadaama ay ku jirto maado la yiraahdo pectin taasoo dufanka halista ah jidhka ka saarta. dhinaca kalena cabitaanka caanaha geela ayaa hoos u dhiga kolestaroolka waayo sida aan wada ogsoonahay geelu waa noole cajiiba oo waxyaabo badan oo jidhkiisa ka mid ah alle daawo inooga dhigay waana xayawaan mucjiso ah oo gaajada iyo hareedka u adkaysan kara bilooyin sidaas ay tahayna isbedel kuma dhacaan faa'iidooyinka laga helo hilibkiisa caanihiisa iyo kaadidiisa intaba. haddaba caanaha geela waxa uu sare u qaadaa caafimaadka wadnaha waayo caanaha geela waxa uu isu dheeli tiraa kolestaroolka fiican iyo midka xun sida awgeed waxa uu muhiim u yahay caafimaadka wadnaha wuxuuna ka hortag fiican u yahay wadna qabadka ka dhasha xanibanka qulqulka dhiigga ee xididada wadnaha taasoo sababo xanuunka kolestaroolku. midhaha loo yaqaano bocorka ayaa iyagana waxa ku jirta maado dabiici ah oo loo yaqaano phytoestrogen cilmi baaris lagu sameeyay waxa la arkay inay maadadaasi kordhiso kolestaroolka fiican ee loo yaqaano HDL waxayna hoos u dhigtaa dhiig karka madax xanuunka kala goysi xanuunka hurka la dareemo xilliga dhalmadeyska ee haweenka. midhaha qumbaha ayaa iyaguna ka mid ah cunooyinka yareeya xanuunka kolestaroolka waayo qumbaha waxa uu yareeyaa halista cudurka kolestaroolka ama dufanka dhiigga kaasoo inuu sheegnay inuu door weyn ka ciyaaro xididada wadnaha inay xidhmaan. baamiyaha ayaa isaguna ka mid ah cunooyinka u wanaagsan dadka qaba xanuunka kolestaroolka waayo baamiyuhu wuxuu yareeyaa dufanka dhiigga ee loo yaqaano kolestaroolka iyo xaydha fadhiisata jidhka qaybihiisa kala duwan sida beerka oo iyadana loo yaqaano triglyceride waana arrin cilmi baadhis lagu arkay. haddaba daawada qof kastoo qaba cudurka kolestaroolka iyo qof kastoo ka baqanaya inuu ku dhaco waxaa lagula taliyaa inuu isticmaalo saliid saytuunka iyo saliid macsarada. saliid macsarada waxa ay daawo u tahay kolestaroolka kacsan saliid saytuunkana waxaa ka buuxa maado jidhka sunta ka saarta oo loo yaqaano antioxidant waxayna la dagaalantaa caabuqa jidhka waxayna hoos u dhigtaa kolestaroolka taasoo ka hortag u ah xanuunada wadnaha. haddaba faa'iidada saliid saytuunka waxaa aad looga helaa saliidda nooca saytuunka ee loo yaqaano extra virgin oil. ugu dambayntii daawadayaal toonta waxay hoos u dhigtaa kolestaroolka xun ee loo yaqaano LDL waxay kaloo hoos u dhigtaa dufanka loo yaqaano triglyceride kaasoo wadnaha u daran waxaana jira dhowr daraaso oo ku talinaysa in kolestaroolka lagu xakamayn karo cunista toonta joogtada ah.